Kusoo dhawaada Arladi News wararka aad daawan doontaan waxa uu waaweyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kulamo gaar ah la qaadanaya qaar ka tirsan la taliyaashiisa iyo dadka rajada ku leh kursiga ra'iisul wasaarnimo. Wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed ayaa isna kulan la qaatay qaar ka tirsan hay'adaha iyo wasiirada iyo wasaaradaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kusimaha sihayaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaar ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa isna kormeeray dekada magaalada Muqdisho. Wararka caalamkana waxaa kamid ah Najib Razak ra'iisul wasaarihii hore ee Malaysia ayaa maanta lagu xukumay 11 sano oo ah xarig markaasina lagu eedeeyay in uu geystay dilbiyo la xiriira musuqmaasuqa. wararkaas iyo wararka ayaa daawan doontaan mar kale iyo Arladi News.